وأروريه روحنا ككله هاي نقلة برعو أنه كسي شيء نقلة لاسعنو ده حرونت قبل كسول سيانوسو بدقنو شيء كذا عبد القادر محمد جامع ووافر سميقان دل يراه كنو المقالة داسي إنا مري laascaanood waxay magaaladaanu ka safarnay ee burco u jirtaa masaafo ku dhow 250 kiiloomitir deegaana tiro badan ayaa ku yaala laamiga xidhiidhiya labadan magaalo intii aanu sii soconayna waxaanu sii marnay deegaana ay ka mid yihiin wadaamago caynaba oog ari cadeeye yigoori iyo deegaana kale oo tiro badan waxaanu soo gaadhnay magaalada laascaanood halkanina waa halka ay ka bilaabmayso dulucda sheekada aan uga soo safarnay magaalada burco cabdiqaadir maxamed jaamac waa farsamayaqaan dhalinyaro ah waxa uu ku xoogsadaa cilad saarista dabka ee gaadiidka meheradan ayaana ku maamulaa hawl maalmeedkiisa shaqo cabdiqaadir ayaa waxa uu halabuuray qalabyo kala duwan oo ay adag tahay waqtigan in gudaha wadanka lagu farsameeyo kuwaas oo kala ah qalabka saxmadda gaadiidka kala haga oo ku xidhay mid ka mid ah jidadka ugu mashquulsan magaalada laascaanood saacada lagu kala bedelay ciyaartooyga iyo qalab kale magacaygu waa cabdiqaadir maxamed jaamac xayir waxaan ku barbaaray magaalada laascaanood waxaan shaqadeeda ka bilaabay isla magaalada laascaanood aan markii hore xirfadan ka soo bilaabay sanadkii 2004kii baan geerish walhaan injineer loo jiray la yiraahdo injineer maxamed ismaaciil galeed oo ahaa macallinkii igu horeeyay geerishkaas xirfadeeda ugu dhawaaban waan aad baan wax farsamada gacanta u xiisan jiray geerishkaas markasta iman jiray oo aan ka agdhawaa sidii baan kaga noqday shaqaalaha geerishka sanadku markuu 2010kii baan bilaabay inaan wax urin karo oo markii ugu horeysay aan isku dayay inaan sameeyo muraayad ama saacad wax la yiraahdo saacadan sportiga lagu kala bedelo waxay ahayd 2010kii bishii 12 markii koobka adduunka meelaha dhamaaday ahayd dawashada koobka adduunka daawanayay kadib baan igu dhacay soo codratay in bal wadankeena iyo dhulkeena in joogno bal laga hirgelin karo qaab electric ah oo sportiga lagu kala bedelo maanta maadaama sportina ahaa farsamayaqaan ahaa laascaanood oo ah magaalo koraysa isla markaasna ay ku soo badanayaan gaadiidka awgeed ayaa waxa uu farsameeyay qalabka saxmadda gaadiidka yareeya traffic light runtii wuxuu ahaa isna qaab aad u daruuri ah buu ahaa marba igu dhalatay inaan degmada traffic light sameeyo iskuusyada ugu jaamka badan markaan traffic light ka sameeyay adigu ilaa laba isbuuc bay igu qaadatay sameyntiisu marka ilaahayna waa noo fududeeyay wuxuu saddex qabood buu shaqeynayay remote control iyo timer oo waqti ah oo dhowrkii daqiiqo mar isdiminayo iyo wax la yiraahdo iyo switch caadi ah oo badhan marna la taabanayo marna la diminayo saddexdaaba shay buu u shaqeynaya marka hadda waxaan ka dhignay qaybtii waqtiga ahayd baan ka dhignay marka laamiga dib loo habeeyo oo maayirku ballan qaaday iyo dawladda hoose markaas shaqadii caadiga ahayd bilaabmaysaa oo la dheeraanayd noqonaya oo waxa loo isticmaalaya remote baa loo isticmaalaya si ayna baabuurta jaamis ku noqon intan oo kaliya kuma koobnay wax soo saarkiisu balse halkan waxa uu ka sameeyay warshad yar taas oo wax la manaafacadsado ugu bedelo waxyaalaha qashin ahaan loo tuuro ee hadhaaga gaadiidka uu ka soo qaaday magaalada laascaanood taandigaas uu guto kaasaa la darayaa oo la soo qaadayaa meel baa saa loogu shubayaa wax la manaafacadsado muhiim ah sida daawayaasha kale cagsaaraha baabuurta baa laga samaynayaa kulay bulshada gobolka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ba kulay aad bay ugu bogaadiyaan oo ugu dhiirigeliyaan barnaamijyada inaan sii wado waan iga sii saacidaan inaan sii wado walow aanan helin dhiirigelin fiican oo ama qalab la wadaagay ama haday noqoto ama dhaqaalaha laakiinse dhalinyarada iyo bulshooyinkaas ba aad bay ugu garab taagan yihiin oo falcelintooda aad bay fiican tahay waxaan ku aanweynaa balin aan dugsi farsamo gacanaan hadda gacanta ku hayo inaan sii weynayo inaan waxyaabo fara badan oo Soomaalidu ama ay samaysan jirtay ama ay samaysan jirinba inaan waxyaabihiin aan kor u qaadno wixii aan samaysan jirnay inaan kor u qaadno aan dhiirigeliyo wixii aan samaysan karin aynan samayn karin ayna hadda sameeyno goobtan uu ku hawlgalay cabdiqaadir waa mid kooban balse halkan waxa uu ku sameeyay ikhtirac ay baaxadiisu weyn tahay Khalid Bakayde wararka maantii laascaanood